talooyinka ayaan akhri doonaa haddii ilaahay idmo. saa horuu sheegnay dalladda irshaad waxay qabatay barnaamij dacawi ah oo halkudhigiisu uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih, oo macnaheedu yahay dhammaan dadka muslimiinta ah inay yihiin dad yani wax loo diray oo shaqo haya oo mas-uuliyiin ah, lana weydii doono mas-uuliyaddii la saaray ayay ku saabsaneed saa horuu sheegnay barnaamijku. marka qodobo ayaa ka soo baxay mawaadiicdii culummada ay soo jeediyeen ajillada ah. qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in islaamku ahmiyad weyn siiyey ka shaqaynta danta guud iyo adeegidda bulshada, wuxuuna shirka barnaamijkan adkaynayaa ilaalinta iyo hagaajinta danta guud iyadoo loo marayo qodob koobaad in da'yarta lagu beero ilaalinta danta guud. nambarka labaad wuxuu yahay kor u qaadista wacyigelinta diimeed si bulshadu u fahanto muhiimadda ay leedahay danta guud. qodobka saddexaad wuxuu yahay muujinta dadka hormuudku u ah ka shaqaynta danta guud. sidoo kale in uu jiro hab lagula xisaabtamo dadka ka shaqaynaya danta guud, oo markay danta guud ay dhinac uga bayraan laleeyahay qadkii waa ka bayrteena ku soo noqda. intaas waxay ku saabsanaa qodobka koobaad oo ah arrinta danta guud. sidoo kale qodobka labaad wuxuu ahaa in lala dagaalamo waxyaabaha aafeeyey bulshada oo ay ka mid tahay qabyaaladda, jahliga, kufsiga, ku tagrifalka awoodaha iyo xaqiridda ummadda. intaasba in lala dagaalamo oo ah mashaakil bulshadeed oo jira. qodobka labaad ayuu ahaa. qodobka saddexaad wuxuu ahaa oo culummada ay walaac weyn ee ka muujiyeen in falalka dhaqanxumada ah ee ummadda ku soo cusboonaaday oo hore aanan loogu oqoonin muslimiinta iyo soomaalida guud ahaanba in lala dagaalamo oo maalmahan aad looga dhawaajiyey. qodobka afaraad wuxuu ahaa oo aad xoogga u saaray in garsoorka uu yahay astaanta cadaaladda iyo ilaalinta xuquuqda bulshada, wuxuuna shirku adkeeyey in garsoorka aad loo adkeeyo, dadka ka shaqaynayana ay yihiin dad macaayiir iyo halbeegyo lagu xushay oo aqoonteeda iyo kartideeda leh. sidoo kale qodobka shanaad wuxuu ahaa oo culummada aad u adkeeyeen in guddiga ama gurigu inuu yahay asalka bulshada laga tarbiyeeyo, gundhigna uu u yahay. taasna ay tahay haddii uu gurigu uu daciifo inay dadka ka soo baxaya ay noqonayaan dad tarbiyada hooseyso. haddii guriga aad looga shaqeeyana oo wacyigelinta iyo hooyada barnaamijkeeda aad loo adkeeyana inay ka soo baxayaan dad wanaagsan. sidaa darteed culummadu waxay adkeeyeen ilaalinta axkaamta guurka iyo qoyska muslimka ah. sidoo kale culummadu waxay adkeeyeen barbaarinta ubadka iyo siinta xuquuqda ay u baahan yihiin ay leeyihiin. sidoo kale wacyigelinta qoysaska iyo xoojinta wada dhaqanka wanaagsan ee cushrada la yidhaahdo ee ka dhexeeya lamaanaha isqaba. culummadu nambarka lixaad waxay aad u adkeeyeen oo ay ka hadleen in warbaahinta kala duwan ay ka mid tahay idaacadaha, telefishinada, social mediaha iyo waxyaabahaas oo dhan ay yihiin seef laba af leh oo dhinacii loo adeegsada ay noqonayso. culummadu markay xoogga saareen in dhinaca wanaagga loo adeegsado, xumaantana laga fogaado, oo waxyaabaha lagu soo gudbinayo ay noqoto waxyaabo laga fogaaday. sidoo kale culummadu waxay xoogga saareen in baraha bulshada ee social mediaha la yidhaahdo loo adeegsado khayrka, oo mid ay noqoto khayrka lagu miiro, wanaaggana loo adeegsado, xumaantana looga diga dadka ummadda, maadaama barnaamijku uu ahaa dhammaan mas-uuliyadna saaran. qodobka sideedaad wuxuu ahaa oo shirka ka soo baxay in culummadu ay u baaqday dhammaan culummada, hoggaanka dhaqanka, dadka aqoon-yahanka, dhallinyarada, bulshada dhammaan inay barnaamijkan ay xoojiyaan, ka shaqeeyaan si loo helo ummad caafimaad qabta oo wanaagsan. sidaa daraaddeedna ujeeddadii lalahaa loo gaaro. qodobka sagaalaad ee ugu dambeeya wuxuu ahaa in dalladda irshaad ay u mahad celinayso dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo ay ugu horeeyaan culimmadii barnaamijkan fulisay oo najixisay.
sidoo kale masaajidka lagu qabtay alhuda maamulkiisa sidoo kale warbaahinta oo aad uga shaqaysay maamulka dhammaan dadkii ka qayb qaato dhan ayay u mahad celinaysaa waxay leedahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh